Assalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga kusoo dhawaada channelkayga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweeties. waa walaashin Mema oo idin wado muuqaal cusub. fadlan haddii aad channel ku cusub tahay subscribe noo saar, haddii aad hore noola joogteen soo dhawo mar kale. aad iyo aad ayay u mahadsantihiin dhammaantiinaba. waxaan idin soo diyaariyay canjeero aad iyo aad u jilcan, aad iyo aadna u guduudan oo soft ah maasha Allah. dhadhan ahaana aad iyo aad u wanaagsan oo markii adig ahaan aad ka heli doontid aad cunaysid canjeerada qaabkeeda iyo muuqaal ahaanteeda. waxyaabaha laga sameeyay ayaa ugu wacan inay kusoo baxdo gaduud soft ah oo maasha Allah dhadhan wanaagsan leh oo adina ku qancin doono. ani run ahaantii aad ayaan uga helay qaabkan, waan jeclahay inaan u sameysto. run ahaantii dadka gaaska qaba xitaa way wanaagsan tahay canjeerada anaga caadiina u sameysano ee cajiinka xoogaa acid ayay kicisaa. dadka gaaska qabane waxaa laga yaabaa inay ku kaco gaaska, laakiin canjeeradan markaan qaabkan u sameysatid oo kale ma dareemeysid wax acid ama gaas ah, laakiin maasha Allah run ahaantii caafimaad ahaan iyo muuqaal ahaan iyo dhadhan ahaan buu u wanaagsan tahay. waxyaabaha aan ka sameeyay ayaa ugu wacan haddii ahaan lahayd ukunta, sidoo kale caano booraha iyo wax yar oo sokor aanan aad iyo aad u badneenin iyo leebitada oo aan ku kicinayay ama fixiso sida u taqaaniinbo. waxyaabahaas ayaan ka sameeyay markii aan sameynayay. wax cajiina kuma aanan sameynin. run ahaantii waxaan ii suurtagelisay inay noqoto canjeero aad iyo aad u qurux badan, aad iyo aadna u dhadhan wanaagsan maasha Allah. run ahaantii sida ujeedaanba waa kana muuqaalkii, idinka xitaa waa ka heli doontaan. run ahaantii waxaan rajeynaa hadeerba inaad ka hesheen. qof walba wax dhiirigeli waxaa waaye dadkiisa. waxaan idin rajeynayaa inaad noqon doontaan asxaab mar walbo kor u soo qaada channelkayga. run ahaantii anigana taas aad ugu faraxsanahay. waxyaabo badan waa soo gali doonaa hadduu Alla idmo insha Allah mar walbo. idinkana waxaan rajeynayaa inaad mar walba ila socon doontaan dhiirigeliyaal iyo noqdo insha Allah. aad iyo aad u mahadsantihiin. haddana waxaan rabaa inaan idin tuso qaabkii aan u diyaariyay canjeeradan dhadhanka iyo muuqaal ahaanba wanaagsan. idinkana waa arki doontaan. waxaan diyaarsanayaa burkii aan ka sameyn lahaa canjeerada oo 2 bakeeri ah. ani ahaanteeda qiyaas inta igu filan waaye, laakiin qof walba asaga yaqaano waxa uu isticmaali lahaa ama waxa ku filan. run ahaantii hadeerna waxaan rabaa inaan ku daro aan idin tuso ukun ayaan rabaa inaan isticmaalo. ukuntan waxay siinaysaa soft iyo dhadhan wanaagsan ayay siinaysaa wax walba aad sameysanaysid, qaasatan marka canjeero ahaan aad u sameysanaysid. sidaas oo kale waa kaad ukuntii ayaan ku daray burkii sida ujeedaanbo. run ahaantii sida idin sheegayba dhadhan ahaan iyo muuqaal ahaan wax walba way wanaagsanaan. haddana qaando leebita ama fixiso ayaan ku daray. waa ka fixisadan waxay iga saacideen oo ii soo kaco burkeyga. wax yar oo 3 qaando u dhiganta oo caano booraan isticmaalaya. caanahana waxay ka saacidayaan soft ku noqdaan wax walba aad sameysanaysid. run ahaantii sokor yar aan badneenin. canjeero sokor ma ku fiicna, laakiin wax yar oo dhadhan siinaya ku daraya. sokortana iska badinin haddii aad sidan u sameysanaysid. biyo aan ku qasayo waa biyo diiran ma aha biyo qaboob ah. biyaha diiran mar walba waxay ka saacidayaan inay isdhex galaan oo si wanaagsan ay iskugu milmaan ayay ka saacidayaan markii aad wax sameynaysid. haddana waxaa waaye wax walba waan ku daray sida ujeedaan. waxaan rabaa inaan qaso. qaabka aan qasayna waa idin tusinaya dabcan. run ahaantii markii aad rabtid inaad wax walba aad sameysid mar walba isku day inaad biyo diiran aad ku qasid. biyaha diiranna waxay ka saacidayaan waxa aad sameynaysid inay yacni si wanaagsan isku dhex galaan sida idin sheegayba. waa ka hadeer qaabkan ayaan burkii u qasanayaa. markii aad wax qasaysid wax dhibaato ma lahan, laakiin muhiimada aad idin tusinaa waxay tahay wax walba step aan sameynayo inaanan idin tuso ayaan ugu talagalay. taas waaye muhiimadeeda. qof walba uu yaqaana sida bur loo qaso, laakiin waxyaabaha lagu daraayo iyo waxyaabaha aan lagu dareenin oo muhiimka aheenin inaan idin tuso ay ahayd ujeedada idin tusaayo. waa ka hadda sida uu kusoo baxay qaab la dubi karo oo kale. markana waxaan rabaa inaan iska daboolo burka intuu kasoo kacayo oo fixisada ay yacni ka qamiirinayso. waa ujeedaan wax yar ayaan sugeynaa ilaa 15 daqiiqo in la eg oo igu filan. intaas wixii ka dambeeyana waxaa waaye waa la dubi karaa. haddaba waxay ku xiran tahay adiga
intii aad qasatay iyo intii ficisa aad ku darsatay iyo waqtiga kugu filan adiga waad dareemi kartaa. Waa ka burkeeni oo soo kacay hadeerna wuxuu diyaar u yahay inaan dubno oo maasha Allah. qof walba sidii canjeero loo dubo wuu yaqaanaa wuu garanayaa, laakiin muhiimada waxay tahay in yacni wixii markii aad sameynaysid waxyaabaha aad ku daranaysid dhowr marna waan sheegay. marka waa ka muhiimada idin tusinaayo canjeerada aan dubayna waxay tahay inaan waxba idinka qarinin markii aan wax walba aan sameynayo si yacni aad u aragtaan wax walba step by step iyo qaabkii ay igu soo baxday. qof walba waxa uu sameyn karaa, laakiin waxa loo kala duwan yahay qaabka wax loo sameynayo ee dadku kala duwan yihiin. marka waa ka waxyaabaha ugu horeeyo oo muhiimka yacni ahaan aan u arko si aan waxba uga tagin ayaan idin tusinayaa insha Allah. isla socod wanaagsan. waa ka hadee idin barayo qaabka canjeero loo dubi lahaa, laakiin idinku waa taqaanaan muhiimada waxay tahay in una aragtaan muuqaalkii oo dhameystiran oo aan waxba ka harsaneynin iyo qaabkii ay igu soo baxday maadaama aan waxyaabo badan ku daray oo muhiim ah. marka tal ahaan markii aad rabto inaad wax dubtid, haddii ahaan lahayd canjeero, haddii ahaan lahayd sabaayad, haddii ahaan lahayd muufo caadi ah ama waxyaabo kale oo badan, mar walba waxaa ku dadaashaa dabka inaad iska gaabisid. haddii aad dhuxul isticmaalaysid inaad dabka iska yareysid, haddii aad kuukar isticmaalaysid sidoo kale aad iska gaabisid, waayo waxa aad sameynaysid waxa ay ku noqonayaan wax guduud badan oo qurux badan. laakiin haddii dabka uu kugu badan yahay oo kale ama ku dheereysan yahay waxay kuu keeni kartaa in wixii ay ka gubtaan adigana yacni dhadhan ahaanna way kaaga xumaanayaan, muuqaal ahaanna indhaha uma wanaagsano. oo cuntada waxa waaye markii muuqaal ahaan loo arko ayaa lagu qanci karaa, dhadhan ahaan markii uu wanaagsan tahay waa lagu dhargi karaa hadda Soomahan. marka waa ka canjeeradani waan dubay waan dhameeyay sida ujeedaan waa kana qaabkan ayay ku soo baxday oo guduud ah run ahaantii aad iyo aadna waxay u tahay soft yacni markaan oo kale markii waxyaabaha laga sameeyo oo leebitada iyo burka iyo sidoo kale aan iraahday marka la isku daro ukunta caano booraha iyo sokor yar aan badnaynin iyo biyo diirran marka lagu qaso canjeeradaada waxay noqonaysaa canjeero qurux badan dhadhan ahaan u wanaagsan. qof walbana wuu ka helayaa, adi ahaan xitaa waa ka helaysaa haddii aad sidan oo kale u samaysatid. mar walba waxa waaye wayna fududahay mana dhib badna markii aad sidan u samaysanaysid oo kama dhib badna markii cajiinka aad samaysanaysid canjeerada ah. waa ka labada dhinacba waxay ka noqotay guduud ayay ka noqotay run ahaantii markii sidan ay tahay aan ahaanteeda waan ka helaa oo dooqeyga waaye. idinkana haddii aad hore u samaysateen waa ka qofkii aan samaysanin ha tijaabiyo wuu ka heli doonaa xaqiiqatan. horena waan idinkugu sheegay oo dadka gaaska qaba xitaa canjeerada cajiinka markii laga sameeyo sida ku jiro way ku kicinaysaa, laakiin markii leebito aad ku habeysatid iyo ukunta iyo caano booraha iyo sokorta sida idin sheegay wax sida ma kugu kicinaysa canjeeradaas xitaa haddii aad subaxdii dubto ma isbedelayso oo ma adkaanayso. marka kale canjeerada adeeg ay noqonaysaa qarfax oo kale haddii muddo taalo, laakiin markii oo leebitada iyo laga sameeyo ukunta caano booraha ma isbedelayso sidaas ku samaysatay ahaanaysa xitaa saacado kadib ilaa duhurkii ilaa galabtii sideeda ku ahaanaysaa, wax iska bedelaya ma lahan. kaliya waxa waaye waxay ku xiran tahay qaabka aad u samaysatid ay ku xiran tahay. haddii aad rabtid inaa canjeerada cajiinka aad ka samaysatid ilaa xilligaas samaysatid inaa hore ku cuntid ay ku wanaagsan tahay, laakiin tan waxay kaga duwan tahay xoogaa muddo ayay ku ooli kartaa adiga uun ayay taa ka yacni kugu xiran tahay haddii aad samaysanaysid oo aad ka heshay iyo haddii aadan ka helin oo cajiinka aad jeceshahay. qof walba dooq ayuu leeyahay, laakiin ani dooqeyga waa sidaan. marka waa ka sida ujeedaanba canjeeradeeni run ahaantii aan sameynayay maanta halkaa ayay ku eg tahay. qof walbana wuu yaqaan sida loo sameeyo, laakiin waxyaabaha lagu daraa la isdheeryahay. mar walba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin aad iyo aad weliba macsalaam insha Allah.